ma og tahay inuu habka aad u fikiraysaa uu saamayn taban iyo mid toganba kugu yeelan karo noloshaada ma og tahay inay tayooyinkaaga wanaagsan ee aad leedahay gaabis u noqon karaan habka aad uga warceliso hadallada aad maqasho amaba se aad adigu iskugu sheekayso Asalaamu Alaikum anigu waxaan ahay Maxamed Faysal Cali ugu horeyn intaanan muuqaalkan bilaabin fadlan subscribe saar kanaalkayga si aad ula socon karto muuqaalo kale oo xiiso badan insha Allah fikirka qaldani habka ka mas'uulka ah inaad u fikirto si qaldan marka aad u fikirto si qaldan waxaad noqonaysaa qof kulmiye xanuuno badan oo halis badan sida niyad jabka cabsida iyo qaar kale oo badan noloshaadu waxay u cakirmi kartaa kaliya fikir qaldan oo uu qof kugu yiri ama aad adigu iskugu sheekaysay waxay u ciryaami kartaa aragti qof kale kula wadaagay ama uu ugu talagalay inuu kugu cabsi geliyo sidoo kale hab fikirka qaldani waxa uu kugu kalifi karaa inaad curyaan ka noqoto wax qabadka iyo wax kasta oo wanaagsan dadka meelaha sare nolosha ka gaadha waxay ku celceliyaan kelmadda ah waan qaban karayaa waan awoodaa inaan gaadho wax kasta oo aan jecelahay waad awoodaa inaad ka guulaysato fikradaha qaldan ee maskaxdaada iyo dhagahaagaba ku soo noqonaya waayo waxaan ku kalsoonahay awoodaada waxaan kalsooni badan ku qabaa inaad ka guulaysan karto aragti kasta oo qaldan oo maskaxdaada ku soo noqota waxaad jeceshahay inaad noqoto dhakhtar waad noqon kartaa haddii aad la timaado dadaal iyo shaqo ka adag inta ay qabtaan dadka kale ogow haddii hab fikirkaagu saxmo inay noloshaada dhammaanteed noqon doonto mid aad in badan ku faraxsanaato haddii aad doonayso inaad ku guulaysato nolosha ha seexan waqtiga aad ku jirto safarka nolosha waayo waxa macquula inay hurdadu ku dhaafiso casharro aad u xiiso badan ma aha ceeb inaad u fikirto si qaldan laakiinse waxa ceeb ah inaad ku sii nasato meeshii khaldanayd adigoon isweydiin sababta ay wax u qaldameen waxaad ogaataa in wax kasta oo noloshaada saamayn taban ku lihi inay u yimaadaan sabab una soo noqdaan sababtuna waa qanacsanaantaada dadka meelaha sare nolosha ka gaadha ma doortaan waddada jilicdasan laakiinse waxay doortaan midda adag waayo baahida ay u qabaan guusha ayaa ka xoog badan waxa ay ugu sheekaysa maskaxdoodu ogow fikirka qaldani inaanu ahayn saaxiib daacad ka ah saaxiibtinimadaada waxaa la ogaaday cabsi kasta oo bilowga u muuqata mid awood darani inay mustaqbalka isku bedeli karto mid awood badan haddii markasta aad isku aragto waxaad jeceshahay inuu shaki kaa gelayo waxaa la joogaa waqtigii aad bedeli lahayd hab fikirkaaga waayo waxa waqtigan baahi weyn loo qabaa inaad bannaanka u soo saarto qofka aad tahay iyo hibada aad leedahay iska ilow inaad guulaysato ilaa inta aad ku qanacsan tahay inaad iskugu sheekayso fikirro qaldan waxaan kaaga tegayaa xikmadahan fikradahaagu waxay kuu qaadaan meel kasta oo aad rabto inaad gaadho laakiinse fikradaha qaldani ma laha awoodda ay kugu geyn karaan meel aad u fog xusuusnow waxaad dareento iyo waxa dhabta ah inay kala duwan yihiin fikirka togan iyo fikirka tabani mar isku mid ah kama wada shaqo geli karaan maskaxdaada labadooda midkood ayuunbaa awood u leh inuu maamulo hab fikirkaaga adiguna waxaad noqonaysaa hadba fikirka maskaxdaada ku guulaysta waxay noo ballanaa nolol qurxoon insha Allah